Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waa xusuus haye maantu ay taariikhdu tahay 5tii bishii 10aad 2025. Waxaan idin hayaa qiso ka mid ah qisooyinka dunida ka dhaca. Qisadan waxay wadataa cajaa'ib badan. Waxaana soo wariyey mid ka mid ah imaamada masaajidda. Waxaana ku bilaabay sida tan. Waxa uu yidhi, waan soo kacay, waan soo weyse qaatay, masjidka ayaan imid, salaadii subax ayaan u istaagay, rakcadii koowaad ayaan tujiyey. Markii aan u istaagay rakcadii labaad ayaa waxaan maqlay nin ka mid ah jamaacadii masaajidka gadaashay ku tukanaysay oo ooynaya leen alxamdulillaah. Wuxuu yidhi, waxaan isweydiiyey, talow ninkan ooynaya leen alxamdulillaah muxuu helay? Muxuu sana noogu mahadcelinayaa Allah oo Ilaahay muxuu siiyey? Imaamkii wuxuu yidhi, markii aan salaada ka baxay isla markiiba ninkii ayaan u jeestay. Waxaan idhi, haye Ilaahay muxuu ku siiyey? Ninkii halkii ayuu qisada ka bilaabay. Wuxuu yidhi, gabar ayaan isqabnay muddo bilooyin ah, waxaana sugayay inaan aabba noqdo, ay uur ii qaaddo. Ha yeeshee maysan dhicin. Maalmo kadib gabadhii waxaan u kaxeeyey isbitaal. Waa la baaray. Dhakhtarkii waxa uu yidhi, waan ka xumahay, riximkeedii waxaa ku yaalla buro. Buradaasna xitaa haddii laga gooyo ilmo ma dhalayso. Taasina waa sababta ugu weyn. Gabadhii way naxday, way argagaxday. Maxaa ka xun in lagu dhaho madhalays ayaa tahay? Ninkii wuxuu yidhi, gabadhii way iga carartay oo guriga ayay aaday. Kadib guriga markaan imid, waxaan arkay gabadhii oo boorsooyinkeeda xirxirtay oo iridka taagan. Waan eegay, waxaan ku idhi xaggeed u socotaa oo boorsooyinka oo xirxirtay. Waxay tidhi, guriga hooyaday ayaan u socdaa, warqadda furiinkan halkaas igu keen. Ninkii wuxuu yidhi, waan yaabay. Waxaan ku idhi, maxaa ku helay? Gabadhii waxay tidhi, maxaa ku helay maxay tahay? Anigu madhalays ayaan ahay, sabab aan guriga kugu joogayaa, maxaan kuu ag joogayaa, maxaan kuu xayirayaa? Ii sheeg sababta aan kugula joogo. Aasaaskii ugu weynaa soo ma ahayn inaan carruur kuu dhalo. Ninkii xaaskiisa qalbiga ay u dejiyey, wuxuuna yidhi shaydaanka iska naar. Carruurta yaa haya, soo Allah ma ahan. Ka waran, haddii aan xaas kale guursado oo aan dhali waayo, weligay xitaa kuma fikirin inaan xaas kale kula guursado. Gabadhii waxay tidhi, sheekada hadda bilow ayay maraysaa, maalinba maalinta ka dambayso indho xun ayaad igu soo eegi doontaa, waxaadna dhihi doontaa inaan aabba noqon waayo, tanaa sababteeda leh, tanaana ka guursan la'ahay. Guriga hooyada ayaan ku ahaa boqorad, haddana iyadaan ku ahay boqorad, dhibna ma qabi, warqaddan halkaas igu keen, buuqna uma baahni. Wuxuu yidhi, waan dejiyey, Ilaah ayaan xusuusiyey, dharkii iyo wixii ayaan ka qaaday, guriga ayaana ku celiyey. Maalmo kadib hooyaday ayaana soo booqatay. Hooyaday waxay ku tidhi, ma rabtid miyaa oo ma qorshaynaysid miyaa inaad hooyo noqotid? Khalaas, hadda kadib waa inaad hooyo noqotaa. Markaasay gabadhii tidhi, haa waan qorshaynayey, oo si daacadnimo leh ayay ugu sheegtay oo waxay tidhi, waan baxay, dhakhtar ayaan aaday. Dhakhtarkiina sidaas ayuu igu yidhi, hadda kadibna ma dhali doono oo madhalays ayaan ahay. Hooyadiina may nixin oo uma muujinin wax niyad jab ah oo waxay tidhi, dhib ma lahan, carruurta Allah ayaa haya, waadna heli doontaan insha Allah, anna waan idiin soo ducayn doonaa. Maamadii guriga ayay ku noqotay. Gurigana waxaa deggan wiilka walaalihiis, gabdho iyo wiilal iskugu jira. Kadib waxay u sheegtay in walaalkood aan u badali doonin oo aan aabba noqon doonin, gabadha uu qabana ay tahay madhalays. Dadka guriga joogay arrintii ayay fajac ku noqotay. Dabadeed gabadhii waxay bilaabeen inay gabadhii ku dhiga hadlaan, mar walba is arkaan, ku dhahaana maxaad wiilka u lugoynaysaa oo maad iskaga tagtid, iyo hadallo badan oo xanaf leh. Ninkii wuxuu yidhi, maalin ayaa ugu darnayd, weliba iyadoo shaqo ka timid. Mid walaalkii qabo ayay waddo iskaga hor yimaadeen. Kadib ayay ku tidhi, damiir ma lihin miyaa oo naxariis ma lihin miyaa, xitaa haddii aadan dhalaynin oo aad si dhaba u jeceshahay, mid kale maad u guursid, maad u ogolaatid inuu naag kale guursado? Gabadhii ciddii markii timid oohin ayay is'alin weyday, way barooratay. Iyadoo ooynaysa ayaan qolka ugu tagay. Waxayna ii sheegtay hadalladii lagu soo yidhi oo xanafta lahaa. Kadib ninkii wuxuu yidhi, waan baxay, walaalkay ayaan u tagay. Waxaan ku idhi, dumaashaday mar dambe
hadallo xun ayaysan ku dhihin xaaskayga. Walaalkii wuxuu ugu jawaabay, axsaanka ayaa kaaga daray, miyaad rabtaa inaad magac la'aan dunida ka tagtid? Iyo hadallo kaloo badan. Wuxuu yidhi, ani waxba idinkagama baahni, xaaskayga ammaan ii siiya. Ninkii wuxuu yidhi, guriga ayaan ku laabtay, gabadhii ayaan u tegey oo waxaan idhi, anaa xal kuu haya. Gabadhii waxay tidhi, ilaahan kugu dhaarshee, xalka ii sheeg oo muxuu yahay? Wuxuu yidhi, ilma ayaa haya. Waxay tidhi, dabcan ilaah baa haya. Haye, ka waran haddaan salaatuliil tukanno oo aan ilaah barino? Waxay tidhi, waa hagaag, waa arrin fiican, haddaba caawa inoo balan ah. Laakiin wuxuu ku yidhi, adiga tuko, ilaah noo bari. Gabadhii markii la gaaray saq dhexe way soo kacday, way soo weyse qaadatay, salaaddii ayaynu istaagtay. Kadib ninkii wuxuu yidhi, oohinteeda ayaan ku soo kacay, anna waan soo weyse qaatay, qol kale ayaan galay, salaad ayaan u istaagay. Arrinta cajiibka ah waxay tahay, ninkii wuxuu yidhi, anigu ma dhihin ilaahu carruur sii, oo waxaan lahaa ilaahu ducada ka aqbal. Sababtoo ah anaa dhahay ilaah bari, ilaah waxba kama weynaysid. Ilaahyow gacanteeda oo maran ha soo celin. Cajiib. Sidii anagoo u taagan ayuu aadaankii koowaad nagu dhacay. Muddo 7 toddobaadyo kadib, maalin maalmaha ka mid ah, anigoo shaqaynaya goobta shaqada jooga ayaa waxa ay soo qaraacay taleefan. Waana walaalkayga. Wuxuuna igu yidhi, soo orod, xaaskaaga isbitaal ayay taallaa. Wuxuu yidhi, waan soo orday, isbitaalkii ayaan imid. Isla markiiba dhakhtarkii ayaa iga hor yimid. Waxaan ku idhi, maxaa ku dhacay? Iyadoo fiican ayaan ka tagay. Dhakhtarkii wuxuu yidhi, isdaji, gabadha ninkeed maa tahay? Haa buu yidhi. Dhakhtarkii wuxuu yidhi, miyaad waalan tahay? Sideed ugu tagaysaa xaaskaaga oo xaamilo ah, weliba mataano ay sido? Sideed ugu ogolaatay inay guriga ka shaqayso? Sideed ku ogolaatay inay guriga hagaajiso? Ninkii wuxuu yidhi, dhakhtarka qaylidiisa 2 eray keli ayaan ka maqlay. 2 eray waa maxay? Waa xaamilo iyo mataano ayay sidaa. Wuxuu yidhi, waan wereeray, dhulkii ayaa ila yaraaday, waan cararay, waxaan raadiyey qolka ay xaaskayga ku jirto. Waxaan arkay iyadoo sujuudsan oo ooynaysa. Wuxuu yidhi, xaaskaygaan isku duubay. Waxaan ku idhi, maxaan ku lahaa aniga? Ilaah gacan ibrikeed kuma soo celinayso kuma lahayn. Qisada marka ninkii wuxuu yidhi, waxyaabaha kalifay inaan mar walba oo aan salaad ku jiro oon ooyo oona dhaho alxamdulillaah, waxaa kalifay waa sidaas. Qisadaas ayaana igu dhacday. Oo shala ubaad la'aan ayaan ahayn, maantana mataano ayuu nagu deeqay. Shala xaaskaygii madhalaysnimo ayaa lagu caynayay, maantana waa la ammaanayaa. Haddaba qisadan maxaynu ka baran karnaa? Waxaynu ka baran karnaa haddii aan xanuunsanno, haddii aan owlaad la'aan noqonno, haddii aan waxba haysanin, inaan bini'aadam aanan waxba ugu baahanin oo aan ilaah barino. Haddii aad ilaa dhammaadka nala joogtay, waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto, siina shargarayso si asxaabtaada kale wax ugu faa'iidaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.